arkaysay wixii ka dhacay dalka weliba caasimadda dalka inay noqotay meel hooy habeen walba dhiig habeen walba guri laga tacsi ay taal saan tacsi u dirayna waa daallay ilaahay wuxuu qadaray maanta sabti in loo ballamo in ajandii laga hadlo in ummadii la yiraahdo meedii xaq u lahayd oo indhaha u ahayd hal laga xiro waxa weeye wax cadaalad maaha gudoomiyaha arinta ku qaldan yahay xeeroosaadna ma qabo dastuurna ma qabo cid soo jeedisana ma jirto waxa weeye shacabku inay ogaadaan wixii sababay amni darrada dalka ka dhacday annaga ma ka hadlayno ciidan biri duulaya oo dagaal qaadaya meel lagu jiro iyo meel laga hadlay waxaanu ka hadlaynaa wixii sababay amni darrada dalka ka dhacday xaq baan u leenahay haddaan xildhibaan nahay bahda saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay goobjoog u ahaato cadaalad maaha qodobkaasuna qodob jira maaha waa joogaysaan xaq baan u leedahay inaad bulshada u gudbisaan askarta idima saari karto halkaana joogaysaan annaga maanta askaridiya qodobka xeeroosaadka toddobaad iyo qodobka dastuuriga 63 labadaba waxaa la rabaa inay cid soo jeediso annaga xildhibaanaan ahayn 17 xildhibaan baa waxaan ku soo jeedinay in la ka ogolaado sabtideeda in lagu daro ajandaha waana la ka diiday waad ogeedeen meediyo goobjoog baa ka haydeen maantana waxaan rabaa ciddii ajandaha wata inay soo jeediso dowladdeeda wadata xukuumaddeeda ogolata in lala xisaabtamo ma ogola maalin walba waxay la taagan yihiin isla xisaabtan ay daahfurnaan ma jiro cadaalad baa loo baahan yahay gudoonkuna hadduu ka joogi waayo runtii cawaaqib xumada ka dhalatay baarlamaankan isagaa sababa waa mahadsantihiin